inaan halkaa ka sii wadi doono uu maxamed ku joojiyey waayo waxaan ka soo shaqeeyay ugu dambeeyay institution la nature ah ama isku dabeecad yihiin utility-guna isku meel isku shaqo ayuu leeyahay wax ka wada bilaabmaa power station waxaanu ku wada dhamaadaa distribution haddii sahaamin la sameeyey biyaha magaalada Hargeysa waa arrin wanaagsan in loo helo lacag biyaha markaa lagula soo baxana waa arrinta labaad ee yoolku uu ku xaqiijismayo marka koowaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baanu mahadnaqayaa marka koowaad subxaana wa tacaala fursadda inoo siiyey inaynu iskugu nimaadno kulankan xil wareejinta mar labaadkana waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ii magacaabay xilkan maareeyaha wakaaladda mar saddexaadkana waxaan u mahadnaqayaa martida sharafta leh ee kala duwan ee xafladan iskugu timid ee ugu horeeyo wasiirka madaxtooyadu ee uu ku xigo maareeyaha hore ee wakaaladda biyaha mudane Maxamed runtii Maxamed baa hadalka dhameeyay oo in badan hadlay waxyaalihii uu soo qabtay faraha badnaana ka sheekeeyay waxaanay muujinaysaa un kartidii Maxamed oo markaa shaqada ku hayay waanan uga markhaati kacayaa waayo intaa uu wakaaladda joogay aniguna Hargeysa ayuun baan joogay haluu ka soo bilaabay iyo halku maanta gaadhsiiyeyna wuu inooga warramay marka aad iyo aad buu mahadsan yahay institutionada kolley dee qof baa dhisa qofkaasina wuxuu samaystaa team garbaha ku qaada markaasi yoolka ama targetka uu institutionku leeyahay markii aynu imika aynaan xafladda iskugu iman ka hor maxamed wuxuu soo mariyay departmentiska ama qaybaha kala duwan ee wakaaladda runtii aad bay u dhisan tahay aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan halkaa ka sii wadi doono uu maxamed ku joojiyey waayo waxaan ka soo shaqeeyay ugu dambeeyay institution la nature ah ama isku dabeecad yihiin 80% wax ku dhow institution-kan uu maxamed hogaaminayay kaasoo ah leydhkii biyuhuna waa utility-guna isku meel isku shaqo ayuu leeyahay wax ka wada bilaabmaa power station waxaanu ku wada dhamaadaa distribution marka waa wax isku mid ah marka insha Allah waxaan rajaynayaa maxamed halku ku joojiyey inaanaan hoos uga celin doonin aniga iyo maareey ku xigeenka iyo tiimka kale ee uu maxamed nagaga tagayba laakiin si guud marka loo eego Hargeysa waa magaalada ugu weyn Soomaaliland 1.5 milyan baa ku nool 1.5 milyan haddii loo qaybiyo oo la yidhaahdo 6 qof ayaa guri kasta ku nool averagely waxa weeyaan waa 208,000 oo guri bay noqonayaan 208,000 oo guri ayay noqonayaan 208,000 oo guri maxamed wuxuu tilmaamay inuu 14,000 oo macmiil ama 14,000 oo guri biyo ku jiraan ugu yimid imikana uu mari dhowr 20,000 ama 30,000 oo dhowdhow yihiin inta imika loo diyaarinayo marka laga tago 30,000 oo macmiil 30,000 oo kale imika la diyaarinayo laga tago taa micnaheedu waxa weeye 14% ayaa 2,000 iyo markaa 210,000 ee guri 14% ba ayaa biyo ka hela micnaheedu waxa weeyaan 85% ama 86% dadkeenu biyaha ma helayaan bay ka dhigan tahay oo biyo ama booyad baa u dhaaminaysa ama sidii kale ay biyaha u helayaan bay u helaan taasi waxay noo tilmaamaysaa inaynaan aanu fadhiino oolin ayay tilmaamaysaa anigu waxaan ballan qaadayaa insha Allah oon hortiina ka ballan qaadayaa ilaahay hortiisana ka ballan qaadayaa inaan xilkaasi si daacad ah hanu wadi doono kartidayda igu jirtana aan insha Allah siday tahay aan markaasi uga faa'iideyn doono wakaaladda wixii wanaagsan ee wakaaladdu leedahay waa halkaygaan ku daynaynaa wixii kale horumarin u baahanna dee had iyo jeer waxay ku xidhan tahay leadershipka iyo hoggaanku siduu u arko markaasi jooga ayay ku xidhan tahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee inoo yaal waxaa ka mid ah haddii sahaamin la sameeyey biyaha magaalada Hargeysa waa arrin wanaagsan in loo helo lacag biyaha markaa lagula soo baxana waa arrinta labaad ee yoolku uu ku xaqiijismayo waayo Maxamed sidaa uu inoo tilmaamay wuxuu la kulmay mashruuca weyn ee biyo ballaarinta ee wajiga koobaad uu bixiyay
markaas wuxuu tilmaamayaa midna waa hagaajintiisa iyo sanitationkiisa iyo qurxintiisa midna waxa weeyaan lacagtii aad ku shaqeynaysay aad hesho marka insha Allah taala halkii ay wakaaladu taagneyd ayuun baan ka sii wadi doonaa waxaanan ka codsanayaa shaqaale weynaha wakaalada biyaha sidii uu maxamed sheegay ragga tafta iyo hablaha jooga inay gacmaha nala qabtaan inay hareer istaagaan in khibradooda aanu ka faa'iideysano si markaasi aynu hore ugu socono halka aynu doonano waxa kale ugu muhiimsan oo ku soo gabagabeynayaa maxamed maalgelinta 13 milyan ay wakaaladu maalgelisay ee uu sheegay wuxuu carabka ku dhuftay deyn ahaan inay ku harsan tahay wakaalada 3 milyan iyo 900 kun inay ku harsan tahay oo investmentyada waaweyn ee la galay qaybihi ka harsanahay tahay taasina waa arrin u baahan maamulkeegu kulli sidii uu xalin lahaa dibna ugu noqon lahaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee aniga iyo maareeyo ku xigeenka sida xoogga noo soo dhaweeyay ididiilada aad muujiseen iyo ku habboonaanta aad nagu sheegteen runtii waxay nagelisay cabsi badan sababta oo ah marka la yiraahdo ninkaasi waxa waa qabanaya waa inuu wixii qabtaa hadii kale way beenoosaa isagiina marka shakhsiyadiisii waxbay ku noqonaysaa ducadana soo raaciya annaguna insha Allah taala inaanu daacadnimo iyo soo jeed iyo markaas inaanu hawsha sii wadno ku shaqeyno iyo halka ay maanta taagan tahay ee 30 kuna oo ay wakaaladu ka dhaqaaqday inaanu ku shaqeyno baan idinka codsanayaa aadna waad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.